kuna wanaagsan saaxiibadayda sharafta leh meel kasta aad daafaha iyo dacallada caalamka ka joogtaan iyo meel kastoo aad naga daawanaysaan. walaalkiin axmed baqaye ayaa halkan idinka salaamaya. mar kale soo dhowaada. bishu maanta waa 3 bishii labaad sanada 2021. dabcan sidii horeba aad nooga barateen waxaan idin dulmari doonaa wararkii iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha dalkani Jarmalka iyo guud ahaan qaaradda Yurub. barnaamijkeenan dabcan habeenlaha ah habeen kasta aan idiin soo gudbino waxaan ugu magac darnay waqti kooban iyo warar badan. waxaan isku dayaynaa inaan dhowr war oo kala duwan waqti kooban idinku soo koobno. idinkana waxaan rajaynaynaa inaad waqtigan la wada qaadataan oo halkan aan ku wada caweyno si aynu dunida oo dhan hal meel ugu soo wada koobno. nagu soo biir haddii aanad hore nooga mid ahayn, haddii aad naga mid tahayna mar kale soo dhowo. warkeena maanta waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda coronavirus. sidoo kale waxaanu eegi doonaa xukuumadda iyo xisbiyada xukuumadda gacanta ku haya ama maamula oo ka shiraya sidii lacag loo siin lahaa dadka job centerka ku jira iyo dadka shaqeeya balse mushaharka yar qaata meheradaha, sidii carruurta lacag loo siin lahaa. waa war weyn oo aan xaaladiisu yarayn. insha allah waad la socon doontaan. kolley warkaasi waxaa lagaga hadlayaa in dadka lacag la siiyo, muhiimadda sidii 300 euro kale, laakiin waa mawduuc ka ballaaran kii hore oo kale oo ay macquul tahay in carruuraha lacag la siiyo, sidoo kale dadka job centerka ku jira laftooda lacaga gaara la siiyo, sidoo kale dadka socialka ku jira lacaga la siiyo. arrimo fara badan oo noocaasa laga hadlayaa, weliba rajadiisu ay aad u badan tahay. mawduucaas ayaan warkeena maanta ku falanqayn doonaa. sidoo kale waxaan eegi doonaa waddanka Portugiiska oo xaaladiisu aad u xun tahay dhanka coronaviruskan cusub oo dalka Jarmalka caawimo soo weydiistay iyo caawinta uu dalka Jarmalku siiyey. sidoo kale warar kala duwan oo ka dhacay gudaha dalka Jarmalka ayaan iyaga laftooda falanqayn doonaa. waa tahay saaxiibayaal, soo dhowaada mar kale. xaaladda guud ee coronavirus haddaynu eegno, tirada guud ee dadku coronavirus ku dhacay dalka Jarmalka waxa ay maraysaa 2,250,613 kiis. waxaa kasoo caafimaaday 1,989,300 oo qof, waxaana u geeriyooday 59,310 ruux. intaas waa Jarmalka oo keliya. haddaba muddo maydaan maqal caalamka halku coronavirus maraya. caalamka oo dhan marka laisku wada daro inta la xisaabiyo wadamo badan baa jira oo aan tiradooda la diiwaan gelin. wadamada Africa ay ugu badan yihiin oo iyagu aan diiwaan gelin dadka coronavirus ku dhaco. wadamo badan oo sida Latinka oo kale ayaa jira, laakiin inta la diiwaan geliyay halkee ayay maraysa. dadka coronavirus ku dhacay tan iyo maalintu bilowday caalamka oo dhan waxay maraysaa 104,058,920 qof. waxaa kasoo caafimaaday 68,581,500 oo ruux. waxaana coronavirus uu dunida ka mustaafiriyey tan iyo maalintu bilowday 2,259,048 ruux. waa tiro aad u fara badan runtii, 2.2 milyan dad ka badan. waa marka tiro ahaan la eego. wadamada qaar ayaa jira 2 milyan 3 milyan dadkoodu gaadhsan yihiin, qaarba 2 milyan dadkoodu yihiin. waddan dhan dad gaadhaya ayuu u dhowdahay, ama dad waddan noqon lahaa ayuu coronavirus dunida ka kaxeeyey. waa tahay intaasa kaga gudbaynaa coronavirus. halkee maraysaa wararkeennii kale. mar kale soo dhowaada saaxiibayaal. haddaan xasuusiyo barta subscribe-ka ha hilmaamina, lacag idinkuma joogto, waa idinka. caawadan aan joogno hadda aad daawanaysid waxaa dhici doona. haddii aad berrina daawanaysidna waa maalin kale, laakiin maanta bishu waa 3. caawada markaa bishu caawa 3 tahay, caawa waxaa dhacaya kulan u dhexeeya xisbiyada xukuumadda ku midaysan. kulankani waxaa kasoo qayb gelaya xisbiga CDU ee Merkel hogaamin jirtay, iminkana uu guddoomiyaheeda yahay ama uu hogaamiyo Laschet. dhawaan loo doortay Laschet, madaxweynaha gobolka Nordrhein-Westfalen xisbigii loo doortay. marka Angela Merkel iyo Laschet oo xisbigaasi midna yahay guddoomiyihii hore ahna kanselarka dalka, midna yahay guddoomiyaha cusub mustaqbalkan la rajeynayo inuu kanselarka dalka Jarmalka noqdo. iyo waxaa kasoo qayb galaya guddoomiyaha xisbiga CSU xisbiga gobolka Bayer iyo madaxweynaha gobolka Bayer Hersuda. sidoo kale waxaa kulanka jooga isna xisbiga SPD madaxiisa Fogo Eskan oo iyagu kulankaas kasoo qayb galay. marka waa xisbiyadii ku midaysnaa, labada xisbi 15 gobol iyo halka gobol metelaya, iyo xisbiga unionka ay ku midaysan yahay SPD ayaa waxaa noqonaya kulankaasi
arrimo badan kaga hadlaya marka kulanka caawa dhacaya wax badan baa lagu falanqayn doonaa insha allah marka waxyaabaha kulankaas lagaga hadlayo xisbi kasta iyo mas-uul kasta oo kasoo qayb galayo ay ka mid yihiin wasiiradii madaxdii xisbiyada iyo dad fara badan oo markaa dadkii awoodda dalka gacanta ku hayay ah ayaa wax lagaga hadli doonaa arrimo fara badan marka fikradaha iyo ajendayaasha ay madaxdaasi wataan ay doonayaan shirka ka qayb galaan ayaan insha allah idiin falanqayn doonaa marka go-aanadii maaha waa ajendayaashii shirka lala tegayey marka taasaa la falanqayn doonaa wixii kasoo baxaan insha allah marka ugu horeysa ay soo baxaan haddii caawa waqti dambe laisla gaaro kolley berrin bay noqonaysaa haddii kale caawa waqti hore ay soo baxaan insha allah wadala socodsiin doonaa kulanka waxaa looga hadli doonaa caawin lacageed dadka haynta yar ama hayntoodu yar tahay in caawin lacageed la siiyo qofka jobsterka ku jira dadka socialka ku jira meheradaha markaasi coronavirus awgo hantidooda ay hoos u dhacday dadka aan shaqayn iyo cashuuraha ayaa lagaga hadli doonaa in cashuuraha qaabkii hoos loogu dhigi lahaa dadka aan shaqayn sidii lacag loo siin lahaa dadka socialka ku jira sidii lacag loo siin lahaa dadka jobsterka ku jira sidii lacag loo siin lahaa iyo meheradaha markaa hantidoodu ay hoos u dhacday sidii caawin loogu samayn lahaa ayaa ajendaha guud ee lagaga hadlaya kulankaasi uu noqon doonaa xisbiga SBD ka raalli ahaada marka qaarkood wax akrinayo ana arkaya wax kala akhriya marka waxaa isku dayay inaan wax qaldan idin akhrin marka xisbiyadan xarfaha loo soo gaagaabiya ayaa hawshooda iskale foqo-aaskan oo ah xisbiga ay ku midaysan yihiin xisbiyadu maamul hoggaankeedii ah waxa ay tiri waa in aynu caawinaa carruurta ehelkoodu job centerka ku jiro ama ay qaataan mushaharka yar in lacag la siiyo ayay tiri dadkaasi carruurta marka carruurta yaryar ee ehelkoodu lacag hayntoodu yar tahay mushaharada yarar qaataan ama job centerka ku jiraan waa inaanu lacag siinaa waa ajendaha markaasi ay kaga qayb galayso shirka waxay sheegtay waa in lacag sidii sanadkii hore oo kale 300 oo euro ama lacag la mid ah la siiya ha ka yaraato ama ha ka badnaato wixii la isku raaco bay noqonaysaa kolley laakiin iyadu fakarkii qabtaa ama ajendaha shirka la tegaysaa waa in lacag la siiyaa carruurta ehelkoodu job centerka ku jiro ama lacagaha yar u qaato xisbiga SBD ayaan weli ku jirnaa ayaa maanta ka hadli doona in caawin cusub la siiyo dadkaasi sida maraa idinku sheegay lacagahaasi 300 ama wixii ka badan ama wixii ka yar oo kale in la siiyo ayay kaga qayb galayaan shirkaas wasiirka shaqada ee dalkan Jarmalka Herr Heil oo isaguna SBD ka tirsan dadka job centerka ku jira waa in ay helaan caawin dheeri ah qof kasta sida lacag ilaa 100 euro oo kala gaadhaysa ayuu yiri wasiirka ganacsiga wasiirka shaqada ee dalkan Jarmalka Herr Heil oo isaguna xisbigaasi SBD ka tirsan dhanka mucaaradka laftoodu arrintaasi way ka hadleen oo waxay yidhaahdeen xisbiga greenka dhanka mucaaradka ah waa in asxaabta iyo xukuumadda shiraya ay isku raacaan in dadka la caawiyo waa in qof kasta oo job centerka ku jira la siiyo 100 euro ugu yaraan ama adigu lacag qiyaastii 100 euro oo kale waa in la siiyaa qof kasta oo job centerka ku jira ilmo kasta oo markaasi dalka Jarmalka joogana in la siiyo 60 euro tusaale ahaan dadka job centerka ku jira oo kale ayaa qof kasta oo job centerka lacag ka qaata waxaa loogu dari doonaa lacag tusaale ahaan weeye 100 euro ama 200 euro kale ah ilmihiina 60 euro ama 100 euro oo kale ayaa la siin doonaa oo dowladdu siinaysa marka waa caawinta ayay sii raacsan yihiin oo leeyihiin waa in dadka la caawiya sababta ah dhaqaale burbur ayaa ku dhacay hantooda ay yaraatay weliba waa loo sii kala nugul yahay qofka mushahar badan qaata iyo qofka mushahar yar qaata way ku kala duwan yihiin markasta ay baahiyo dhacdo baahidu waxay aad u saamaysaa dadka masaakiinta qofka wax badan haystay wixiisii badnaa ayaa yaraada laakiin qofkaan waxba haysan waxayntii ayuu miinus sii gelayaa hoos ayuu sii dhacayaa marka waxaad moodaa in lacag siinta dadka la siinayo inta badan waa lagu kala aragti duwanaan jiray laakiin waxaad moodaa imika in laisku wada raacsan yahay xukuumadda iyo dhammaan mucaaradkii iyo xukuumadduba ay fakarkaasi wada qabaan ay leeyihiin dadka lacaga la siiyo laakiin weli go-aana kama soo bixin kolley waa la falanqayn doonaa xisbiyadaasi xukuumadda gacanta ku haya ayaa ka shiri doonaa kana wada hadli doonaa wixii koo soo baxa insha allah sida ugu dhaqsaha badan ayaa idinkula soo codsiin doonaa markasta halkaas channelka Axmed Baqay YouTube-ka ayaad kala socon kartaan ama halkay meel kastoo ah hadda iga daawanaysid wararka kale dalka Jarmalka waxaa jira wadanka Portugiiska oo ka mid ah wadamada EU-da ayaa waxaa
saameyn badan ku yeeshay dhanka koronahan cusub xilligii christmaska ama waqtigii christmaska December dhamaadkeedii ayuu aad ugu bilowday koronahaasi waddanka Portugiiska waxaa ku yaala ama guryo ku leh dadka reer Ingiriis dadka Ingiriiska degan ayaa guryo fara badan ku leh waddankaasi Portugiiska xilliga Christmaska ama xafladaha ay qabsanayaan ama ay doonayaan shaqooyinka ay fasax ka yihiin ee guryahoodaas yimaadaan kadib halkaas ay waqti ku qaataan dhulkaas marka Portugiiska oo waddan dalxiis ah ay iska joogaan kadibna dib ay wadamadooda ugu laabtaan marka dad fara badan oo ka yimid waddanka Ingiriiska ayaa Portugiiska tagay xilligii Christmaska kadib dib ay u laabteen laakiin intii ay joogeen ay aad dadka u dhex galeen bulshooyin badan ay dhex galeen taas ayaa sababtay in coronavirus-ka cusub ee dalka Ingiriiska ka dilaacay uu aad ugu dhex faafo waddanka Portugiiska marka dhaqaatiirtii iyo cisbitaaladii waddankaasi Portugiiska ku yaalay ayaa garan waayay qaab ay u kontroolaan ama ay u daweeyaan dadka koronaha cusub uu ku dhacay oo ah wax cusub oo aan hore loo arag iminka baaritaankiisa iyo qaabkii dadka loo daweynayay lagu jiro qofka uu ku dhaco sida uu u saameynayo ilaa hadda aan si cad loo garanayn oo qof dadka qaar uu khatar degdeg uu ku yahay dadka qaar uu ku fiican yahay qofba si uu u ataagayo koronihii hore xaaladiisa waa la ogaa waqti muddo sanad ka badan ayaa baaritaan lagu waday imka si wacan ayaa loo fahmay qofka uu ku dhaco qaabkii loo daaweyn lahaa ama markaasi xaaladiisa loo daryeeli lahaa markuu isbitaalka joogo laakiin kan iminka xaaladiisi way ka dartay dadka uu ku dhacayna aad ayay waddanka Portugiiska ugu farabateen marka waddanka Portugiiska ayaa wuxuu caawimo weydiistay wadamada Yurubta ee markaasi asxaabtiisa ah waddanka Jarmalka oo ka mid ah wadamadii caawimada soo weydiistay ayaa waxa uu maanta u diray 2 diyaaradood oo military ah labadaas diyaaradood waxa la socda 26 askari oo military ah dhaqaatiir shaqaale caafimaad iyo waliba qalabka caafimaadka waxa aanay insha Allah halkaas joogi doonaan waddanka Portugiiska muddo 3 toddobaad ah 3 toddobaad waxay ka shaqeyn doonaan qaabkii ay u sameyn lahaayeen isbitaal military dadka isbitaalada markaas ku dhibaataysan waddankaasi Portugiiskana ay caawin iyo waliba gacan u siin lahaayeen sidii ay daaweynta iyo ilaalinta dadkaasi caafimaadkooda looga shaqeyn lahaa watahay qodobka ugu dambeeya warkeena maanta waxaan ku eegi doonaa magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka ayaynu eegi doonaa iminka 2 qof ayaa ku geeriyooday 2 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari Audi ah ama gaadhidan Audi-ga ah ee dalka Jarmalka laga soo saaro uu shil ku galay gudaha magaaladaasi Berlin maalintii shalay ahayd 10:40 daqiiqo fiidnimo 10:40 fiidnimo ayuu gaadhigu shilka ku galay marka gaadhiga si xawliya u soconayay ayaa waxa ku dhacay geed kadibna halkaasi dab ayaa gaadhiga ka kacay 2 qof oo ka mid ahaa dadkii gaadhigaasi la socday ayaa ku geeriyooday halkaas 2 kalena dhaawac ayaa soo gaadhay oo isbitaalka ayaa lagu dabiibaya marka dhammaan dhalinyarada dadka gaadhigaasi saarnaa waxa ahaayeen dad dhalinyaro ah 4 qof oo dhalinyaro ay ahaayeen marka 2 kalena waa la dabiibaya 2na akhra ayay u hoydeen waxaan war iyo wacaal maanta idin haynay intaasaan kusoo afmeeraynaa intaan mar kale maalin kale iyo meel kale ku kulmi doono walaalkiin Axmed Baqayo idin leh meel kasta aad joogtaan waan idin jeclahay saaxiibayaal ma ogaanina inaad naga mid noqotaan haddii kalena sii dhaaftaan bye bye